السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي ومدى الصوماليات ميل كستو أدونك دعلي هذا كجوكتان وولاشين فان بران له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي صون كنوب الله خير كيسة ربي رحمن كأه هنوب الله أجري حسناتنا الله إن قصي كوبي صومي ورن كوبان صومنا إلهي الدنيا آخر السلعين ومدله عن halkaas soonkii ku macsalaamayno soon bacdeen markaan ka bax macsalaaman soonka waxaan galaynaa insha Allah dadkii ila shaqeynayay maxaa igala soo ay wala soo hadleen aniga maxaa koos gareeyay in shaqadii la joojiyo waa fahmi waaye alxamdulillah ala kulli xaal wax kastana waa ilaahay mahadiis sida uu ogtihiinba caruurtayda waaweyn waa la ii ogolaaday maxkamada ayaa ii ogolaatay deedna wiilkayga xaaladiisa waa xaalad aan aad iyo aad uga xanuunsanayo ilaahay mooye bini aadan caawiyana aan waayey insha Allah ilaahay baana caawin doono waayo meel aan maanta waa naf aan sidoo kale meel aan ku furo culayska wiilkayga ma haysto ilaahay rabbiga raxmaanka bas mahane ha ahaato waxaan codsanayaa bishaan Ramadaan in Salmaan loo soo duceeyo qof kasta oo hooyo ah oo wiilkeeda 14 jirka oo maanta xooggeediya oo maanta 14 sano ka qaan gaaro oo 15 sano waxa uga dhiman 4 bilood bisha 10 ayuu buuxinayaa maxkamad ma uu codsan karo silac uu ku jiro ma uu sheegan karo hadii uu sheegtay waxba waa laga caawin waay hadii uu cararay ciidan waa loo waayay ciidan malaa'igad iyo hogaan malaa'igad Allah u diro culayska aniga hooyo aan dareemay waxay tahay cunugeygii oon la ii keeni karin lana ii diidan yahay ee aan kula ahay Soomaaligeeya ee naftiisi markuu la baxsadana la leeyahay waa la sii cadaadinayaa وانا maxay to meesha uu joogo asaga jooska mala anaga la baalay lawyer kidano cunugay u dooday ba wax aan anigu jeclaysan ku hadlayso oo leh waa ilmo yar ana u hadlay marka Salmaan bisha 11aad uu buuxinaya ilaahay aan wada barino intaas inuu hadii uu noolaado oo caafimaad ku gaaro oo aan layga durin aan layga dhibaateynin ama aan meesha ilmaha xabsiga la geenin insha Allah rabbiga raxmaanka haduu qadaro 11aad asaga maxkamad iman doono oo xaqiisa sida Suraya hadda ay u hadashay ay u warami doono insha Allah ha ahaat saastayta subhanallah ayaaba la afjigaya oo cunugii xaqiisi ku dooda xatii la leeyahay yaani ma dhageysaneen waa ilmo sida hadda Suraya arinteedo kale Suraya mar alla markay looyaradeedii u sheegatay dhibkeedii ay tiri guriga waalidkeen u baahanahay waxa isla markii culays la saaray ayada waa la cadaadiyay oo waxa loo diiday in ay ila kulanto waxa loo diiday in ay ila hadasho waxa loo diiday in aan aragno deedna markii aan la hadlay ama balanti ay soo wacday oo balan lahayn ay balanti cunugta naga baajisay ayay waxay igu bishaareysay in aan shaqadii joojinay bay tiri maxay tahay shaqada jooji subhanallah ilmaha in aan laguba tusaynin waxaanan ogolaanay anagu hadaan socialka ilmaha qaato waa ku diidna alxamdulillah okay baayri waayo hore ayaan inii sheegay hore ayaan inii iri subhanallah qof bini aadan ha isku daciifinin qof bini aadan ahna ha ka dhigin in uu adduunkii kugu soo gadoomiyay waxaad ka dhigtaa adiga sidoo mararka qaar ay kugu fududahay ina iskaga hadasho ayuu qofkan awoodiisii bes ugu hadlay yaani waxaan ka wadaa adduunyada iyada mare adduunyada Allah subhanahu wa ta'ala iskale ayada ilaahay baa umay aniga ilaahay baa umay ilmahayga ilaahay baa umay kuba ilmahayga haystan ilaahay baa umay bes marka midda kaloon ka siinaxa waxay tahay gabadhaadu waxay ku faraxsan tahay guriga ay joogto waxaan noo sheegay familka haysto سبحان الله الله أكبر وحا إني شيء وح يقولي من أنت بدنا ضدك إليه وصح في هذا ما شاء الله مركز سؤال أنا سويت حتى أدوكو قبل اللوير بيقبضتي
way qaan gaartay oo way يعني xilligii looyarka way gaartay aan dhahay oo way buuxisay 15 waa 16 jir Soomaha xaqeedii baa looyar u qabtay Soomaha sharciga oo ilmaha in la dhageysto ah baa gabadhan caawiyay oo looyar u qabtay iyaduna afkeedii ayay furtay waxay ku jawaabtay oo waraqahan dhun ku salaysan oo ku qoran ay maxkamadda u tagayso waalidkeed aabaheedii hooyadeed in la siiyo in gurigoodii lagu soo celiyo in sharciga xoog laga dulqaado deedna markay looyaradii waxaas sheegtay kamuunkii iyo labadii islaan oo haystay gabadhayda waxay anigu igu bishaareen eeba yacni sheegeen in layla shaqayn doonin ما شاء الله وصومنا هاي وح أكو هذا جرم واي يعني واسكا شب أياسكا واي معناه شب واحد هاي بني آدمك هدي أو يسو يهدا باهدا أو شيء معناه وين مكو صو بناس إن نفرنول أو جوان جاري كرتاعته نفرنول أو ربي سبحانه قادر كأمقيها إناته نفرنول أو إلهي أسجوده إناته نفرنول أو سجايا وحكست أو شرعي غير إناته أو وليبا أتكو حمدينيسو الله أو أدلا أو وليبا إلهي كرة لجلينيسو إن أد إلهي كو قناعسنتها قدر والبو هدي قارا لغوغو مصيبايو يا هدي مصر لغوغو مصيبايو قدر والبو أو إلهي كو تستقرينا إن أد تراضو الحمد لله ووضد كليحو إيفورا وإدنا أنا بنا آدنا أنا أوغا أبيلين وضد كليحو إيفورا مركا هذا الكيد إما ضعيفيو منا يعني إيدانقيو بس وإيغا نحيا ودنحيسا مركا شالي عنوكتا هذه اللي قلوه عنوكتا هذه اللي قلتوسا عنوكتا هذه أدوكتا وسلاحسانيا ونف نورال وقلحي gabadhii kaliixo ii joogtana gabadhiina la igu haayo bariyan ku tusayna balantu ahayd deedna anigiyo intaan kare aan barfuun iyo wax u gaday alaab u diyaariyay la igu dacweeyay maxkamad dhan la ii geestayba in ilmaha aan sasamanahay haddana la igu yiraaday kaalay heblo haye marka u tagto ama markii lagu soo hadlan jawaab lagaaga dhigo waxa la yiri warqada lagu qorayaa warqadana fiirina lagu yiri qeefkani wuxuu soo go'aamiyay waxa la soo go'aansaday ma ayaan ku jiri doonaa nolosha tan Allahu ya'lam adigu ma ogid anigu ma ogid laakiin Allah bisa og waxa dhacay Ilaahay wuu arkaa dhagartan maleegan meesha la iga haysto waxoo dhan Ilaahay cid bina aadana oo ka qarin karto ما جرت إلهي وأركا وحوالبو كان وحفلقاي كان إسكاهلاي كان يعني هذا يقول إقابة إلهي قلوبها نور دنبو أركا وأنا قاف رحيم هالمر إنه يقفل وأوذا بس إتحام كي والسجايا سمر كي والسجايا وحو يفيرنا يا إن أنا قف وجل عايا بنا آدمك أما قف إنتو أتكستو الحمد لله كنيني أهلقو oo yani awood intuu yeeshto ilkaas ku dhagsado dib walba u dulqaato shibdhaho go'aan gaaro oo dho alxamdulillah waa naxdin cunugaadii oo aad u soo safartay oo aad sugaysay ee lagu yiri meel hebel imow ee aad okay alxamdulillah tiri ee aad u timid ee haddana lagugu sheekeeyo halo mii maqle haa adi mii dhegaysanoo haysa haa أنا جواديدن علمي قبل يواكوديدن ورقبل ما واحد يوديدن والد كي أنا بامرك تري لوير كذي وشجع تجيب كذي أي بربلين كذي كهذا الشيء أو فيتشر كسكول كذي بربوري أو نورش عن سكوتور كمرة بقى تري محي أنا جنود جيسون ويسي محي هو يلعني عبان تاجن أي ليجي ويسي markay wadadiini ka dhaaftay ay waday ayada leedahay Ilaahay igu aadiyo alxamdulillah ay martay aniga soo ima iqaabaysan iyadana gooni uma iqaabaysan dadkii haystana kama adeejinaysan oo hala sii takaartay oo banaanka cunugtiisa u bixin yeesan iscaawinin yeeynan bas raacin halaga qaad kaarka baska iqaabta adduunka la galiyo maamadii iyo aabihii dhalana aan dhahno halo mi maqlaysin ha kaale
soo orda haye mi maqlaysin ha waa diidna cunugti nilama kulmayso maxaa kalife ma og wax kalife markaa dhahno saanay codsata loo yaray dalbatana waxaa jawaabta ka dhigtay waxa markaa yacni aa ogaatay ama aan la ogaaday waxay maleegayeen inay cunugti diiday oo cunugti waxaa u iqaabay miya anagana aan noogu diiday oo balantina aa u joojisay wada shaqayntina aa u joojisay cunugti markay tiri waalidkee u baahana anigu waxaas ma fahmin ha ayagu waxay rabaan ma fahmaan wixii adiga ay kugu dilayeen ama ilmahaada maskaxda uga dilayeen ama adiga maskaxda kaaga dilayeen way fahansan yoo fishtuur ha waa fahma sax exact waa sheekada waa oo laxana u saaran laakiin markaa runta ka daba geyso oo boontigay rabeen oo dhagarta ilaa anu bini aadan ah mideeda labaad hore ayaan igu sheegay waxay naga aaminsan yihiin aan ku dhah dadaan waxna aqrin waxna qorin waxna garin waxna gudin xayawaan camal bay naga aaminsan ma noo moodaan inaan aqli leenahay ma noo moodaan inaan sayniska adduunka ama aqliga adduunka lagu socdo inaan wax ka naqan maba noo moodaanba waxay ii moodaa dee qof noloshiiba dee zero ka ah oo ayada hoos joogto ilaa see aaminsada garna way u leedahay inay aaminsan talaahanto waxay gar u leedahay aniga ayaa dadkeedii iyo dalkeediiba magan allah soo iri ma fahanti soo saas waay marka inay waxbayay iga aaminto xaq ayay u leedahay haddii aan dadkayga iyo dalkayga joogi lahaa hal mar bes ayay ilmahayga dhiman lahayn halka marne 3 beri oo waajib ah oo tacsiya ayaan dhigan lahaa oo cunugaygii waan ka samri lahaa caloosheedina 3 beri bes ayay gadoominayd laakiin hadda muddada 3 sano ayay ku socotaa sida tan ee anigana maskaxdayda lagu dilaay ilmahaygina lagu dilaay maskaxdoodii nafsadaydina qalqal iyo lagu furaayo iqaab oo ilaahay aan uga furan karo ma fahad laakiin alxamdulillah bil rabadaana noo bilaabatay hala ii soo duceeyo itixaamkan ay la daba joogaan ilaahay iga fududeeyo ilaahay arrimahan meel ay ka xireen ma ogin oo ilaahay ii furfuro wax kasta waa suubiyey waan dadaalay si kasta waa wada kasta waa maray gaal iyo muslim waa isku liiday hoostooda waan tagay ilmahayga calaashaankooda waxaan u qalmin iyo hadal quursi waa u qaata calaashaan ilmahayga haddana saas tayta still inaa isdhiiba ma rabi oo garbaha aan ku taagana ayaan waxaan leeyahay alxamdulillah ilaahayow ilaahu adiga ii gargaar ilaahu gaal iyo muslim ii jibinin ilaahayow bini aadan baahidayda tusin ayaan taagana alxamdulillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاء يعني قاعد سنة يا بشر رمضان فضل كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.